سؤال شكو الديني عبد الله وحويان عبد الله هان محاكو دقاج تسال هان هولبا قبتها وداليسها لكن محاكو دقاجين مالين بشقه اد بدليsid dhowr mar waxa ku celisay networking ka fursadaha ka faa'iideysatay marka networking iyo muhiimad uu leeyahay dhalinyarada uu sheegay shalaamaasad Cabdullah runtii oo Bakar Ducaysan waxa weeyaan dhalinyarada runtii spirit ku socdaan markaan eego in few years in 2-3 years mala maaragtay Facebook email ka fiican gaadhay insha Allah su'aasha haddaan ugu wada galo runtii horta networking ku bilaabaya networking horta run ahaantii waxa weeyaan waa horta wax aad u muhiim ah networking ka xaggan ma aha xagga markaan tagay waxaan realize gareeyay kolba inta network-gaagu yahay ay fursadaha ku hor imanaya waxaad arkaysaa ideas ka ku stimulate garanaya ay leeganayaan waxa la yiraahdaa qofka bini aadanka ah shanta qof ee ku hareeraysan buu average-kooda yahay haddii shanta qof ee kugu hareeraysan shan fursado kaaga sheekeynaya business la furay scholarship la xireeyay shaqo la xireeyay fikrado wanaagsan oo kaaga sheekeynaya ay yihiin shanta qof nasiib labaad haddii shanta qof ay kaaga sheekeynayaan Liverpool baa koob qaaday waa caadi waa resilience saac nolosha oo loo baahay in mararka qaar la insha gareeyo laakiin nolosha hadda inta ku soo koobato ayaan dara weyn taasina marka hore network-gaagu waxa weeyaan waa dadka aad waqti la qaadato dadka aad garanayso ee haddii maanta fursad soo baxdo kula soo xiriiri kara saan idin sheegay maanta scholarship dhanon helay qof baa ila soo hadlay guud xiree aanan warba u haynba network-gaagu waa inuu saan noqdo xagga shaqada haddaad ka eegto imiga caalamka kale waxa jira wax la referral system kambaniyada badankoodu markaad shaqo apply garanayso laba hab baa lagu apply gareeyaa inaad toos u apply garayso iyo in qof company ka shaqeeya aad tiraahdo ay apply gareeyo isaga ku apply garanay referral baa la taas waxay kaga duwan tahay qofku hadduu ku refer gareeyo toos ba interview-ga lagu geenaya haddii CV-gaagu CV macquul aha interview-ga toos laga qaadaya marka application-kiisa apply garayso lagu aamusay ayaa meesha ka baxaysa 40% dadka la shaqaaleysiiyay kambaniyada waaweyn Facebook iyo Google iyo waxaas ee kambaniyadaas waxa lagu apply waxay shaqada ku soo galaan through referral system toos ma soo apply gareeyaan qof baa qof garanaya qofkii uu soo recommend garanaya marka network-gu waa very important anigaygaas waxaan isku dayaa inaan network ka yeesho company waaweyn oo kala duwan si hadhow haddaan shaqo uga baahdo aanan apply gareenay network-gayguna aan u adeegsado hebel ama heblaayo shaqadaasaan apply garanaya ee isoo recommend gareeya waaba intaaba yacni network waa very important waxaan xasuustaa inaan baan wada shaqayn jirnay berigan hay'adaha joogay Figure conference ma ka qayb galay Afrikadan ka dhacay conference-kii buu tagay 3 daqiiqo buu only 3 minutes ayaan conference-kii dadka participants-kii mid kamid ah isbaranay number-kan kala qaadanay email-ka laba bilood kadib buu email soo diray uu leeyahay opportunity baa jira grant baan bixinaynaa soo apply gareey dad local NGO atihiin oo hayso local NGO bay lahaayeen wuu apply gareeyay grant 200 kun la soo diray 3 daqiiqo kaliya ayuu opportunity-ga dhan ku soo secure gareeyay marka awoodda network ku leedahay waa taa weeyaan marka taas waa taa su'aasha labaadna waxay ahayd maxaa ku dhaqaajiya aniga personally waxay dhaqaajiyaa waliba xaggan shaqooyinka iyo drive-ka iyo waxyaabaha haddaan eego horta runtii dee waxyaaba personalna way jirayaan laakiin caadi ahaanba dee markay meel kuu muuqato ma seexanaysid har iyo habeen anu mar walba waxaan isku dayi jiray inaan yacni rolal international helo fursado waaweyn helo marka fursadaha ugu horeeyeen helaabada ee email muuqanba meel fog baan raadsanay marka taasi waxay keenaysaa limitation inuu ka baxo mar walbana meel shisho star aad raadsato waa talabaade star markii hore idin la wadaagay haddii aan arko example qof ilamida halkan ku dhashay oo wadanka Soomaaliland ku dhashay ama Soomaaliya oo runtii ilamida ila background oo saan u soo koray wada uu maray markaan arko motivation bay galanaa jiraliya waxaan adna wadada wad mari karaysaa alla wuxuu qofkaas kaaga duwan yahay habeeraatee ma jirto waxaan ugu jecelahay in la iga sheekeeyo oo aan la kulmo dadka wadooyinka maray ee guuleystay maray waa sababtan barnaamijkan oo kale markaan arko aad u farxeen maaragtay runtii ula riyaaqo marka arrimahaasi aad bay ii drive gareeyaan aad bayna way dhiirigeliyaan idinkana waxaan idinku dhiirigelinayaa qofka labada maanta wadadu maray waad mari kartaa ogow marka laba su'aalood ma qabaano su'aasha koowaad waxa weeyaan saad hore soo sheegtayba Cabdilaahow waxa tiri organization UN-ta iyo organization-nada marka la xareysanay CV-ga inta badan waan aragnaa oo waxaan isku daynaa inaan balay gareyno laakiin qodob baad ka dhawaajtay oo ahaa experience shaqadaadii oo fiilkaaga la xidhiidha oo arkayso inuu waxaagii uu yahay yaa waxa ku xoraya oo ka hor istaagaya
experience waxaa loo baahan yahay qof 7 sano ama marka ugu yartay waa 5 sano marka su-aasha koowaad aan weydiin waxa weeyaan qaabkee looga boodi karaa ama way kale ma jirta la mari karo experience marka laga gudbo oo hay'ad loogu shaqeyn kara qaybta labaad su-aasha labaad aan weydiin waxa weeyaan 3 qodob ama 2 qodob oo guulahaagii ilaahay bacda Allah 2 qodob ama 3 qodob oo guulahaagii aad leedahay wallahi 3 qodob ama 2 qodob baa sababa inaad nala wadaagto waan jeclaan lahayn aad baad mahadsantahay waxa weeyaan waan baxay bay markii su-aasha koowaad weydiiyey caqabadihii hor taagnaa berigii baan aad u xasuustay runtii waxa weeyaan horta challenge waddanka uu ka jiraa waxaa lagu oranayaa shaqo soo apply garee 5 year experience kina laguma ogolo waxa weeyaan markii horeba laguma siinaya opportunity marka horta waa challenge jira halkan uu kama jira caalamkan uu ka jira laakiin waxa la naga yar duwan yahay internships baa jira oo internships ka aad u badan marka industry kala duwan baa jira waxaad geli kartaa healthcare kii waxaad geli kartaa industry kale technology-ga industry kala duwan baa jira inaga industry badan baa naga maqan sababtaas ay yareysay private sector kiyo weeka waxyaabo badan baa sababay in aan fursadaha internship-kii waxaas aanay aad waddankeena uga fiicnayn runtii wasaaradda ka shaqeeyo policy internship iyo waxa sameeyay way jiraan laakiin wali waddan soo koreeyay bayna nahay fursadahaas aad inaguma badna internship waxa weeyaan waa waxa qofka experience ka la doonayo siiyaba experience waxa weeyaan Facebook oo kale interns bay qaataan qof interna waxa la siinayaa 3 bilood 3 bilood waxa la barayaa dhammaan systemka company uu shaqeeyo qofka internship wuxuu arkayaa software-ka Facebook soo u shaqeeyo oo dhan limitation lama siinayo postiga Mark Zuckerberg soo dhigay ilaa iyo systemyada internalka wax walba uu arkaya 3 bilood wuxuu baran karaa uu baranaya shaqada saxda waxay tahayna uu baranaya marka internship waa wax experience ku siinaya haddii internship heli karayso waa waxa ugu wanaagsan ee ku soo mari kara weeyaan taas waa qodob haddii kalena waa inaad kabkabto experience-ka waa inaad isku daydo inaad organizationno loo kala ka shaqeyso ama aad volunteer noqoto hadhow experience-ka buunbuuniso by the way waa la ogolaya inaad buunbuuniso CV-gaaga cidna kuma diidana xoogaa yaroo beeno oo aan waaweyneyn shahaadadu beena ka sheegin waxa kale yani waa buunbuunin kartaa waa normal waa la isla ogolaya adduunyada kolba shaqada aad xiranayso ayaad ku salaynaysaa ayaad ku apply ayaad ku habeynaysaa marka horta waxyaabahan anu markii ugu horeysay gaabka challenge-ka ku dhaafay waxa kamid ahaa waxaan xasuustaa qolo local NGO yabaan kuleera shaqeeyay si voluntary enumerator baan ahaa inta enumerator-kaan ahaa consultantiska World Bank ka socda ee maaragtay ajaanibka ah waan iskala sheekaysan jiray waxaan isku dayi jiray inaan linkigooga helo waxaan isku dayi jiray inaan yani relationship establish garayo shaqooyinkii qabanayaan aan barto taas waxay ii fududeysay marka inaan dee yani base yeesho marka shaqadii koowaad aan idhaahdo waxaan la soo shaqeeyay si part time qoladan waxaasaan ahaa reference haddii la weydiiyana already network-goodii waan hayaa waxaa jira organizationno loo kala waxaa jira companiyo marka waxaasoo dhan baad CV-gaaga ku habeyn karaysaa by the way aad bay u fududahay inaad CV fiican qorto oo qof kala kaashato oo interview gaadha aad bay mararka qaar u fududahay marka dhinac ka eegto oo techniques-kan aan idin sheegaya ah inaad CV-gaaga buunbuuniso ayaa ka mid ah waxyaabaad ku gaari karayso laakiin waxa adag interview-ga markaad gaadho soo dhaafi lahayd taasaa adag taasaa u baahan quality maanta interview qof intaan refer gareeyo Facebook software engineering internship waan gaarsiin karaa laakiin inuu interview-ga dhaafo waayo Europe oo dhan iyo Mareykan oo dhan baa isku dayay inay Facebook galaan markaasaa intii waxa laga qaadanaya injineerada waxa laga qaadanaya imtixaan competitive inta la sameeyay inta imtixaanka jeedun baa la qaadanaya marka inta badan intuitive company-da waa wax galon dad aad iyo aad waxaan ugu fiican oo aad ugu dadaalay jaamacadda ma garatay waan ku gaarsiin karaa interview inta CV la habeeyo company-gu diversity aad buu u rabaa wuu ogol yahay caalamka dhan uu ka shaqaaleysiyaa laakiin interview-ga inaad dhaafto ayaa aad ugu muhiimsan marka waxaan anigu awoodda saari lahaa focus-ka saari lahaa haddaan imika jaamacad dhiganayo ama level waxaan awoodda saari lahaa quality-ga waxaan rabaa inaan noqdo intaan identify gareeyan go'aansado ayaan focus-kayga saari lahaa waa qodobka labaad haddii aan imika ka baxay jaamacaddiina waxaan samayn lahaa what I would do is the company-yo ama organizationno loo kala ayaan si voluntary ula shaqayn lahaa role-ka aan rabana role la mid ah ayaan kala shaqayn lahaa experience-ka saasaan ku heli lahaa qodobka saddexaad in ku daraya waxa weeyaan shaqooyinkan organizationada iyo hay'adaha iyo kambaniyadu qabtaan maaha shaqooyin adag qof kastoo jaamacad ka baxay wuu qaban karaa shaqo kastaad maanta qaban karaysa hay'addu waxay qabato maanta iisoo sheeg waan idin qaban karaa shaqadaasoo dhan aniga maaha cid kastoo hay'ad ka shaqaysa baa qaban karaysa waayo finance excel baad soo qaadi xisaabaad baad gelgelin program manager course project management aad dhigan yacni waxa weeyaan waa wax markaad dhinac ka eegto aad u fudud wuxuun baad u baahan tahay in lagugu dhex tuuro environment-ka aad experience garayso wax la qabanayo real challenges-ka aad aragto deetana experience-ka aad qorato marka ha ka xishoonina inaad shaqooyin kale isku turtaan oo aad maaragtay experience-ka CV-giina ku qortaan waxbayaan kusii dheeraan hadalka laakiin intaasaan kusoo koobi lahaa su-aasha labaadna waxa weeyaan laba qodob oo ka mid a guulahaagii baa tirso ma ku fududeeyay aniga waxa ii dhib yareeyay saan aaminsanahay horta marka hore
marka hore waxay dhib galay drive-ka igu jira rabitaanka igu jiray baahida igu jirtay inaan yani wax helo oo wax raadiyo oo taas waxaan dareemay haddii ay iga maqnaan lahayd meelo badan habeeno badan oo soo jeeday oon application kusoo dul jeeday ama aan kusoo dul jeeday oon labada habeenimo xiranay ama kooda habeenimo maan xireeyeen fursado badan oon helay waxa sabab u ahaa dee backgroundka cid kasta ma ogaan karayso dee waxa sabab u ahaa drive-ka igu jira inaan habeenkii iska soo jeedo laptopkayga aan dib u shito aan iska baadhbaadho fursado ama aan shaqooyinkaygii sii horumariyo ama aan xirfad yar program yar wax sii yara dhisto yacni drive-ka igu jira horta qodob aad u muhiimsan oo alxamdulilah qodob aad u muhiima baan aaminsanahay haddaad isku beeri karto oo wax la isku beero runtii kaas mid buu ahaa qodobka labaadna wuxuu noqonayaa dee inaad natural noqoto qof dadka caawiyo tacaamul wanaagsan oo maaragtay meelo wanaagsan ba ilahay wax kaga soo celinaya intaasaan markaa odhanaya marka waxaan ku weydiin lahaa laba su-aalood su-aasha koowaad waa person hal weeyaan anay marka la joogo computerka waxa la yidhahdo programming language iyo framework ay programming language-kaas ay sii yihiin kuweebaad awoodda saartay oo aad odhan kartaa heerkan hata aad joogto way ku gaarsiiyeen talabaadna inagu technologiyadda jaamacado aan qaabkan u dhigno waxaad odhan kartaa maaha qaab ardaygii anfaca soo gaarsiinaysa heer international haddii wax laga bedeli lahaa way suurtoobi lahayd inuu ardaygii ku tahamiyo inuu international noqdo marka labada su-aalood baan ku weydiin lahaa berigaasaan idin dhigay berigii malaha fursadda soo baxday ee aan offerka sugayay marka horta su-aashu waa su-aal aada muhiima frameworkii programming languageska horta wax kastoo barato fursadihiisu way bannaan yihiin haddaad frontend barato haddaad backend barato marka more technical bay noqonaysaa laakiin way iska fiican tahay inaad ogaato halkay adduunyadu u socoto iyo fursadaha sii badanaya luqadaha qaar baa shaqooyinkoodu sii bataan luqadaha qaar baa shaqooyinkoodu sii yaraanayaan marka taas waxaan kaga cudurdaaran lahaa in odhan lahaa malaha madasheedii maaha laakiin aad iyo aad yani waa aad bay muhiim u tahay in la ogaado waana jiraan luqado aad u wanaagsan oo imika tusaale ahaan front endiga luqadaha lagu develop gareeyo reactiga iyo waxaas in maaragtay la barta aad bay muhiim u noqon lahayd laakiin luqad walbood barato ood skill ku yeelato skill walbood hesho fursaddeedii shaqadeedu way jirtaa waana reportyo badan iyo researchyo badan oo laga sameeyeyna way jiraan oo actually internetkana aad available ugu ah taas waa mid talabaad su-aasha labaad waxay ahayd nidaamka waddanka haddaad wax ka bedeli lahayd maxaad ka bedeli lahayd horta waa runtaaye haddaan awoodda saaro IT-gaas sectorkaas oon aad u garanayo keliya dee horta gebigiisuba waxa weeyaan waxyaaba badan ba maaragtay u baahan in laga bedelaa jira waxa kow ka ah in awoodda la saaro IT-gu maadaama wax technical yahay in la dhigo waxyaaba technical ah haddaan maanta anu IT ku jiro oo aan joogo camuud oo kale ama eelo ama jaamacadaha waddanka waxaan awoodda saari lahaa focuska saari lahaa waxyaabaha technicalka ee programmingka iyo datada iyo waxyaabahaasaan awoodda saari lahaa oo runtii ku anfacaya waxyaabaha kale qualitygaaga lagu dhisaya critical thinkingkaaga lagu dhisaya koorsooyin dheeraada lagu dhigaya koorsooyinkaas meelo kale kaa dhisaysa aduma ogid laakiin hadhow markaad shaqo gasho there is only like so much yani waxaa jira uun in yarood ku shaqayn karayso technicalka noloshaada 5 sano 10 sano intaa wixii ka dambaysa waxaad gaadhaysaa managerial role waad ka dhex baxaysaa technicalkii tiimam technical aad sii maamulaysa waxaan ka hadlaya IT sectorkan ka hadlaya marka xirfadaha soft skillska communicationka leadershipka aad iyo aad bay ku anfacayaan waxyaabaha company-gan aan joogo kale la qiimeeyo waxaa ka mid ah leadershipka ka mid ah waxaa la eegayaa projectyadaad ka shaqaysay ma adun baa ka shaqeynayo keliga ahay isku koobnaa mise dad baad coordinate garaysay oo lead garaysay oo hawl yani project ballaaran baad lead garaysay waxyaabahaas aad loo qiimeeyo oo la eegaya waayo keliga haddaad tahay waxaad qaban karaysaa aad bay u koobantay laakiin markaad qof leadership qualities leh dad kalaad awooddoodii iyo skillkoodii ka adeegsanaysa marka you drive impact through others bay dhahdaan impact ama saameyn baad dadka kale maaragtay aad ku keenaysaa marka haddaad qof ahayd 10 qof baad noqonaysaa taas waa mid markaad soft skillska presentationka leadershipka communicationka waxyaabaha yar iska dhisa laakiin awoodda waxaan saari lahaa haddaan maanta anu stageka marayo waxaan awoodda saari lahaa maaragtay inaan dhiso xirfadda technicalka waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah xirfadaha technicalka waa wax aad u kooban xitaa haddaad IT baran laga yaabo inaad 6 bilood haddii dadaalkeedii la timaado inaad 6 bilood skill aad ku dhamaystirto inaad tiraahdo 6 bilood SQL baan baranayaa khabiir data oo SQL aan noqonayaa haddaad tiraahdo 6 bilood baa kugu filan cabdilaahi cadnaan ustaadkayga waa waxay soo dhigi jireen badan aad baan u hambalyeynaya waana salaamaya su-aal yaro kooban baan weydiin lahaa oo la xidhiidha shaqooyinka ka baxsan waddanka dibaddiisa oo ah su-aal inta badan anigu aan isweydiiyo oo ah intee in leeg bay saameyn kugu yeelan kartaa
goobta aad joogto tusaale qof geeska afrika jooga raba inuu codsado shaqooyin waddanka dibaddiisa jooga yacni ka jira isagoo laga yaabo leh qualities-ku kaga shaqayn lahaa shaqadaas intee in leeg bay caqabad ku noqon kartaa meeshaad joogto sidee baad si qofka uga dabaalan karaa ama uga guuleysan karaa caqabadda ay sababayso qofku meesha uu joogo cumar wuxuu ahaa horta ardayda ugu baraydsaneed fasalka ardayga ugu baraydsanaa buu ahaa aad iyo aad baan waxa weeyaan markaan arko waxaan xasuusan jiray kambaniyada waaweyn iyo fursadaha haddii opportunity-ga halka aad joogto maanta lagu qaado lagu geeyo Mareykan saad u perform gareyn lahaayeen marka maasha Allah su-aashaas halka ka imanaysa waan fahmayaa waxa weeyaan horta adduunyada imika covid baa bari dhaweyd saameeyay iyo remote work bariga hore waa laga yaraa dib baa looga yar guranayay laakiin imika adduunyada company walba laabta u sii daayay remote work meeshaad caalamku joogtaba fursad waad ka heli karaysaa waliba IT haddaa tahay kaba si fiican waxaa laga yaabaa company badan oo project manager ban Mexico ka qaadan labaad arkaysaa laakiin horta limitationkii ahaa waddankaad joogto wuu ka baxay meesha caqabadda keliya innagana haysataa waxa weeyaan bankinka Soomaaliya Somaliland waxa laga yaabaa marka wax loo soo dirayo in dib looga yar fadhiisto la yiraahdo maxaad finance garanaysaa waxa taana bangiyadeena qaar baa imiga service fiican bixiya swift transfer iyo siyaabo kala duwan baa haddii aad company kale la shaqeyso lagu soo diri karaa marka aanu ma arkaba caqabad ma arkaba laakiin caqabadda taa ka weyn ee taala waxa weeyaan sideed ugu xidhmi lahayd sideed halkii fursad u taalay u ogaan lahayd taasaa caqabadda ka weyn ee maaragtay jirta marka waxaan odhan lahaa waxaa jira platformyo imiga ardayda diyaarinaya oo platformkaasaad 2-3 bilood isaga dhex jiraysaa xirfadihii baa lagu barayaa interviewgii baa lagu barayaa kadib waxa lagu xidhayaa shaqaale iyo waxa lagu xidhayaa shirkado ku interview garayo shaqada halka ka siiya halkaas aad iska fahamsanad ka tacaamulaysaa example badan dad badan oo example wadada marayna waynu helaynaay maanta Boromayn la jooga ama de network-goodii la helayaana way jiraan marka waxaan odhan lahaa wax saameyn oo badan oo inagu leedahay ma jirayso inaga xaggaa joogna baynu fursado kala duwan oo caalami heli karnaa aad baan u salaamaya Ustaad Cabdillah macalinkaygu ahaa su'aal kaliya aan doonayna inaan ku weydiiyo Ustaad marka academically laga imaado skillska kala qofka caawin kara inuu meel fog gaaro inuu international noqdo maxaad recommended samayn lahayd marka laga imaado jaamacad iyo secondary skills kala qofka inay habboon tahay inuu barto ay jirto maxaad noogu dari lahayd intaa waxyaabaha muhiimka waxa weeyaan inaad fahanto culture-rada kala duwan diversity-ga ku yara dadaasho oo tusaale ahaan qaab baa jira inagu iskaga hadalno qaab baynu u dhaqanno communication-keenu si baynu u dirnaa laakiin markaad dhex gasho tiimam kala duwan oo tusaale ahaan Europeana ama Maraykana ama Ingiriisa dee waxaa jira waxyaabaha qaar bay offended ku noqonayaan ayaa laga yaabaa marka luqadda lagula hadlayo luqaddan caalamka ku wada hadasho inta badan haddaad organisation weyn oo international ka shaqeyso waxyaabaha si natural u baranayso ay ka mid tahay oo of course companies waa diverse ama hay'adaha waxaad baranaysaa si automatic aad iskaga baranaysaa يعني inaad respectful noqoto markaad hadlayso communication-kaaga xirfadahaasi aad bay ku saameynayaan waana waxyaabaha aadka u muhiimka ah ee aan isleeyahay maanta qof Boromayn joogay oo all of a sudden fursad international helay caqabad bay ku yara noqonaysaa communicate garayso ama aad shaqo oo kale maaragtay yani aad ku dhex barataba shaqada lafteeda yani awareness-ka inaad leedahay baa aad muhiima taasi waxaan aaminsanahay inay markaa limitation noqon karto iyo of course xirfadaha yaryar soft skills-ka sida luqadda communication-ka leadership-ka inaad waxyaabaha leedahayna aad bay iskaga wanaagsananaysa meel kastoo tagtana way ka caawinaysa marka ma muhiim ba inaan eegno faculty kasta aan dooranayno suuqiisa ka joogno waddanka oo kale horta su-aashaan u fahmay waxa weeyaan muhiim ba inaad ogaato shaqada ka bannaan faculty-ga dooranaysa shaqooyinka ka bannaan fursadaha ka bannaan ya magaalada dhexdeeda magaalada dhexdeeda okay horta waxa weeyaan waa su-aal fiican nasiib daro jaamacadaheenu statistics ma share gareeyaan jaamacadaha caalamka waxaan ku arkay waxa ka mid ah digriga tusaale ahaan project management waxa galay 5,000 oo qof labadii sano ugu dambeeyay 90% waxay ka shaqeeyaan hay'ado 10% waxay ka shaqeeyaan tusaale ahaan company industry research noocaas statistics noocaas caalamka laga share gareeyo laakiin jaamacadaheenu ma taraagareeyaan challenges badan oo iska jira limitations badan oo iska jira awgeed laakiin aad bay muhiim u tahay inaad ogaato fursadda bannaan intaanad field-ka dooran kolley of course aad bay muhiim u tahay laakiin waxaan idinkala talin lahaayuun markaad su'aal weydiinaysaan qof yani ardayda kale problemskan ku arkay waxa ka mid ahaa there is a lot of assumption buu qofku iska qaadanaya arday baa ku odhanaya project management tusaale ahaan IT-gu waa field fudud marka assumption noocaasa la qaadanaya assumptionkiibu go-aan ku qaadanaya may go-aan ku qaaday exactly waxa aad rabto inaad noqoto qof noqday soo fadhiisay halkan weydii project management baad galaysaa qof hay'ad project manager ka ahaa dhowr sano la fadhiiso weydii fursadaha ka bannaan mustaqbalku leeyahay wuxuu qabanayo
ama network internetka inoo fududaaday iyo dee meelahaasaynu ka helina eventyo fiican laakiin exactly waddada qof maray ayuun baa kaaga jawaabi karaa dadka kale assumption space ka بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u salaamayaa inay Cabdilaahi Xasan Adnaan oo aan in badan ku soo wada joognay muxuu inay Bangladesh iyo saaxiibkay muxuu inay Axmed Sky aad u salaamaya iyo martidan ka soo qayb gashay barnaamijka inuu su'aalo badan maan hayn laba su'aalood waan weydiin lahaa saaxiibkay ta koowaad waxaan oran lahaa dadkan fiilkii la baqaya yani waxa jira jaamacadii soo dhameeyay fiilkiisii la baqayo yani isla meeshaas kuma haboona laga yaabo tusaale ahaan amba wadanka dhexdiisa amba meel kale muxuu inay ha xariiso shaqo waxa jira dad yani kalsoonidii iyagu hadday noqoto muxuu xitaa qaybtii Englishka waxbuu noqon karayn tusaale ahaan life to life muxuu inay la isku soo istaajinaya muxuu inay hadday noqoto interviewgii dadka la baqaya adiguna waxa noo sheegtay inaad iska daa fiilkaaga ilaa kuwa businessa calo adiga ku jirsinaysa dhiirigelin dadkaas muxuu inay bal haddii qof ka mid ah halkan nala joogo si wax ugu qaato waxaad arrinkaa ka odhan lahayd su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxa weeyaan waqtiyada firaaqada oo maxaa qabata Bangladesh lagu soo wada joognay cuntooyin badan oo magaalada lagu soo cunay maanta ina garanayso magaca ka shaqeeya waxa weeyaan waa su'aal fiican horta caloladaygaasi waa inuu ka yimaado xogaad haysiyo waxaad arkayso tusaale ahaan marka waxa weeyaan anigu caloladayga badan oo galay wuxuu iga galay dee waxaan arkay dad badan oo wada maray ayaan arkay marka markii yarada go'aan baad qaadanaysaa waxaad oranaysaa hadduu qof maray adna mari karaysaa of course labaad waxa weeyaan waqtiyada firaaqada ah su'aalaha ugu adag ee la weydiiyo waxa kamid ah waa maxay hobbigaagu halka markaan joogo imika hobby qof baa ku oranaya halka imika dadkan la shaqeeyo hobbigaygu waa traveling Spain baan tagaa halkan kale maxay qof baa ku oranaya hobbigaygu waxa weeyaan guitar baan haystaayo kaman baan tumaa qof baa ku oranaya qof waxba hobby leey marka inaga hobbigeenu waxa weeyaan malaha waxyaabo kala duwan waqtiyada firaaqada ah berigii hore maan aaminsanayn in waxyaabahan hobbigu ay yihiin waxyaabo dee muhiim ah dadaal noloshaba dadaal bay ahayd laakiin waxaan ogaaday psychologically qofku wuxuu u baahan yahay waxyaabo kala duwan waxaad u baahan tahay in waqtiyada qaar wax akhrido waqtiyada qaar wax raadiso dad waraysato familigaaga la joogto nolosha waa diverse waxay yidhahdaan imiga qolooyinka aan la joogaa work life balance bay yidhahdaan 6 bilood ee ugu horreeyay shaqada aan ku jiray feedbackii igu soo noqday managerkaygu ii sheergalay wuxuu ahaa Cabdilaahi resilient matid yani resilient waa maxay horta bal iimana waan ku waxa la igu yiri 6 bilood baad shaqeynaysay maalin kaliya fasax mad qaadan shaqoon bay kaaga dhigtay ma ogeyn inaan isproof kareeno meel fa ka nimid su'aasha markaa waxa la igu yiri relax maskaxdaadu waxay u baahan tahay inay nasato shaqada 100% inaad wada maaha jimcaha yara naso yani fasax yara qaado meel yara tag eg noloshu waxay u baahan tahay fair balance dadaalun maaha marka aad caaw dhan dadaal ka sheekeynay in waxaan idin lahayn isku balance gareeya yani ma hayna naftaada break gareyso maskaxdu wuxuu qaban karaysa marka taasi waxay la galay su'aashaas ay la gashay laakiin inaad of course waqtigaaga firaaqada aana ka faa'iideysan intaad energy-ga haysa taasina waa iska muhiim oo waxyaabo dheeraad aad raadsato oo ka baxsan shaqadaada caadiga aan isla mid kareyna aad bay muhiim iskaga tahay mar walba qofka bini'aadamka inta su'aal buu isweydiinaya what's next maxaa dheeraad aan qabtaa waxyaabaha kale waan ku buuxiyay waan isku dayay inaan iska fadhin laakiin aan maaragtay wax productive sameeyo inta ugu badan su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay ahayd waxaan u malaynayaa data scientist baa ku shaqeysa soo ma marka computer science na waa ka soo baxday marka waxaan doonayay inaan ogaado data scientist ma adiga spray oo self study baa sameysay marka adigoo sii haysta computer science-ki mise waxaad ku soo qalin jabisay buu ahaa waxa ka doonayay kalan ku weydiinayay waxa jirta jaamacadaheenan badanka waxa la noo dhigo iyo waxa dibadda requirements kala rabaa aad bay u kala fog yihiin marka waxaan sameeyaa badanka intaan remote-ka raadiyo shaqooyinka remote-ka requirements-kooga intaan akhriyo 10 remote oo kale oo shaqada imka React Native oo kale doonaya intaan akhriyo waxaan sameeyaa kuwii iskaga mid kamid yihiin ee badanka loo baahan yahay inaan ku sameeyo study oo anigu barto dibadna aan hadhow ku talagalo marka imka shaqo graphic design imka ayaan wadaayo aan requirements-ka qaabka u raacay waxaan doonayaa hadhow inaan ku apply gareeyo marka maadaama adigu field-ka ku dhex jirto shaqadii ku dhex jirto ma u malaynaysaa inuu fikir shaqan kale yahay waa mahadsantahay internship waxa jira IT-ga kale online ah oo bilaash ah oo company baa lagu xidhayaa si online ah hawl baa lagu diray hawshii baad qabanaysaa qof expert ah hawshaadii soo review garanaya lacagna laga maraba IBM baa iskale website-yada noocaas jira marka kuwaasan awood saari lahaa waayo internshipku waa albaabkii laga galayay shaqada experience-kii la sheegay waxa laga yaabaa adiga wax kugu weyn oo isleedahay waxna wax weyna inaan shaqada loo baahnaynba marka internshipkaasan aanu awood saari lahaa internshipkaasa marka albaabo badan ku furaya dad ku baranaysaa shaqooyin ku xiranaysaa halkaasaan anigu awood saari lahaa imka laakiin waxaad wadaa aad iyo aad bay u tahay
wixii relevantka ah data science ku adduunyada xagga u socoto by the way anu data analyst baan ku shaqeeyaa more like data science data analyst ku yar kala duwan yihiin marka waxaan ku talin lahaa inaad waxyaabaha aad imiga ku jirto aad ogaato adduunyaduba data science waxay bilowday tusaale ahaan dhowr sano ka hor berigaan shahaada dhiganay ma baan ogeyn ba wax data science leedahay haddaan ogaan lahaa beriga ana Bangladesh jooga halka laga dhufan lahaa laga qaadi lahaa marka eeg inaad xogta sii hesho intaan la gaarin ba baahidiiba aanay iman inaad ka sii fikirto tiraado adduunyada maxay u baahanaysaa 5 sano soo socota fursadaha badanaya taas waa wax aad muhiim ah waan ku dhiirigelinayaa approach-ka wadana aad buu fiican yahay internship-kana ku dadaal baan ana waxaan arday dhigtay IT-ga jaamacadda ee sanadka saddexaadna ku jira hobkaygu ugu weyn waxa weeyaan waa laba programming aan noqdo ayana web design noqdo imka laba bilood kadib inaan web design isku magacaabo ayaan rajeynaya laakiin meesha aynu joogno ama environment inagu xiran tirada web designer baan iyo website baan sameeyay cid ku aaminayso safar markii aan dhameeyay last project baa la diray database aan soo sameeyo markaan sameeyayna ku guuleystay arkay dhowr meelood baan soo marnay magaalada iyo koox kala saaxiibada database baan wadnaa ka hor database kana wato ku fiican daw kana cid ku aaminayso marka anigoo study-gii jaamacadda ku jira oo wata imika web designer 3 months ama 2 months inaan soo gogoyo web designer oo website-kaygu horeeyay aan wada geliyay raba marka online isma ku heli karaa haddaan ku heli karaa how baan ku heli karaa anoo jaamacadda joogo maadaama dhulkeenu aynan environment-keeni dad wixii faasanayn horta aad baan ku hambaleynayaa wadada aad maraysa iyo energy ku jira warantii waxa weeyaan meel fiican baad ku socotaa of course cidna kama hortaagan inaad shaqo hesho adigoo jaamacadda cid alla cid ka hortaagan by the way IT-gu waa sektarada kaliya ee aan xitaa degree loo baahnayn degree aad doonto hayso ama haba haysanba yani waa sektarada kaliya ku shaqeyn karayso xirfadaada waa xirfadun baa loo baahan yahay skill intaan imtixaan imiga ka qaado oo interview ku mariyo ma ka jawaabaysaa su'aalahan ku weydiiyo that's it waan ku aaminayaa toos baa lagu dhiibaya shaqada marka cidna kuma hor istaagi karayso farsamooyinka lagu shaqeeyana way kala duwan yihiin qaar baa freelancina qaar baa website-yadaas oo kale aad bay u badan yihiin web development iyo qof baa soo boos garanaya website baan rabaa $1,000 baa in laygu sameeyo ma qaadanaysaa projectiga saas ku qaadanaysa haddii aad shaqo full time helaysana kaba si fiican ba company baa ku qaadan wuxuu ku dhiibi qayb kamid ah front end ka ama back end ka qayb ku dhiibi marka saasaad u maaragtay ugu shaqeyn karaysaa marka cidna limitation ka kuguma soo xidhi karayso of course actually entrepreneur baa tahay dadka magaaladii maaragtay dhex marayso ideyooyin ku soo kordhiso product intaad samaysay ka sii iibinayso marka wax aad u wanaagsan waana kugu hambalyeynaya waxa kaloo jira IT-ga waa runtaa saad sheegtay assumptionist baa jira assumptionist laga qabo IT-ga in ay galaan dadka maaragtay aan fiildadka kale kasoo yaro baqay ama kasoo yaro noqday no IT-gu waa halka adduunyadu u socotay imiga field walba qofku wuxuu jecel yahay isagoo gelayo wax ku baranayo ku shaqeynaya laakiin IT-guna de waa fursad badan oo waa field aad u wanaagsan oo loo baahan yahay in laga faa'iideeyo aadna loo galo weliba dhalinyarada aadka motivatorka waa imiga secondaryada kasoo baxaya aad baan ugu dhiirigelin lahaa waayo iyagoo halkaa jooga ayay ka duuli karaan ama ka shaqeyn karaan haddii ay galaan IT-ga within a year within 2 years haddaad YouTube-ka ku jirtaan oo dee kulli waad aragteen waxaa jira channelo waaweyn oo programming laga barto oo dhalinyaro secondary ku jirta imika Canada iyo Mareykan ay dhigto channel dhan buu leeyahay isaga halka programming caalamka ka bara oo company iskale isagoo secondary ku jira qof ardaygu marka IT-gu fursado badan buu leeyahay intaas aan ku soo koobi lahaa aad baan maastaa shukran jazakallahu khayr aad baad cabdilaahi u mahadsan tahay waktigaaga xogta way aragnimadaad nala wadaagtay waan jeclaa barnaamijku inuu intan kasii bato su-aalo badan aad weydiisaan laakiin saacaddii aan ugu talagalay xataa waa ka batay cabdilaahina weli xog badan buu hayaa idinka laftigiinuna weli aad baad diyaar ugu tihiin aad baad u mahadsantihiin 3 qof baan doonayay inaan halkan ka xuso oo ku dayasho mudan qofka koowaad waa cabdilaahi oo dhammaanteed energy-na geliya halkan iyo meel ka sarreeya inaynu gaari karno qofka labaadna Kamaal Xasan Cadnaan buu ahaa isaga laftigiisu dhawaan shirar caalamiya ka qayb galay iyadna waa arrin kale oo lagu dayan karo waxaa sidoo kale jooga Abubakar Ducaysano isaga laftigiisu barnaamij aad u wanaagsan oo Boroma Networking la isku barta sameeyay waxaan kaaga mahad celinaa Cabdilaahi horta intaan imka joogay dhageysanayay runtii way adag tahay qofka Soomaaliya inta ugu badan qofku markuu jaamacad ka soo baxo oo meel gaaro halka ugu kadarta ugu horeeya oo shaqo yar ka helo halkaas ay Soomaalidu inta badan waqtigooga faraha badan la ku qaataan nin san u daayar oo intaas soo khibrada oo intaas soo hawla oo intaas soo shaqa oo isku bedelaya within weeks ama within months inuu shaqadan ka tago shaqo kale hadana sii raadiyay runtii waa wax muhiim ah oo yani waxa weeye waa wax dheer tahay dad fara badan khibradeediina runtii waxa weeye waxaan jeclaan lahayn in lectures oo inta ka badan
oo techniqueskaad isticmaalaysa iyo waxaad isticmaalaysa imikaad noo soo koobtay iyadoo dhammaystiran aanu insha allahu tacaala aan doonayna inaad iyada lafteedu adiguna runtii waxa weeye waanu kaaga mahad celinaynaa job center iyo axmed iyo runtii khibraddaana khibrad wadaagaasina waa muhim oo nolosha lafteeda wada khibrada annaguba intaa yareen dowladda hoose imika ka barbaarnay howlo badan baan idinka sheekeyn doonaa markaanu imika howlo naga dhamaadaan marka annaguba dee tartankii waanu caymadayno jaaniska marbuna soo marayo waxaan isnuurin waxa weeye wareerada macalinka iyo tamashiirta wax dhaama adoo meelaha dadka wax u sheego wanaagga iyo bulshada iyo horumarkeedii kala shaqeeye jaaniska ka faa'iidey marka insha allahu tacaala khayr badan iyo wanaag badan baan rajaynayaa waxaan idinku dhiirigelinayaa kolley aqoonta iyo cilmiguna waa hubka aad waxa weeyaan dee meel walba maanta aan cidna kuu sheegan karin sheekhna kuu sheegan karin shariifna kuu sheegan karin cabdilaahi de maanta odhan mayna suldaan baa geeyey facebook cilmigiisaa geeyaan leenahay waxa weeye aad